haddaba barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa akhbaaraadkii ugu waaweynaa ee soo kornay intaynu kala maqnayn. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa iyadoo shalay madaxdii martida ahayd ay sabootiyeen oo u duceeyeen aaskii qaran ee loo sameynayay ayatullaahi ayaa maanta oo sabdiya ay berito axada shacabka ayaa loo ogolaanayaa magaalada Tehraan inay iyaguna sabootiyaan oo ay u duceeyaan. ilaa 20 milyan oo qof dad ku dhow oo reer Iiraan ayaa la sheegay inay sabootiska ka qayb galayaan. kadibna waxaa loo qaadi doonaa magaalo diimeedka Qum, kadibna waxaa la geyn doonaa wadanka Ciraaq Karbala iyo Najaf halka ay markaa ziyaartaan dadka Shiicada. kadibna waa la soo celin doonaa 9 bisha ayaa la aasi doonaa. ilaa hadda madaxda ka soo muuqatay ducada iyo sabootinta loo sameynayay aaska qaran ayatullaahigii hore kuma jiro wiilkiisa Mujtaba Khamenei, laakiin waxaa la arkayay madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka, wasiirka arrimaha dibadda, taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan, mas-uuliyiin fara badan oo reer Iiraan ah, iyadoo marti sharaf kalena iyaguna halka ay ka qayb galeen uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Ruushka, ra'iisul wasaaraha Pakistan, madaxweyne ku-xigeenka Turkiga iyo marti sharaf fara badan oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka socotay dowladaha Carabta qaarkood oo markaa iyaguna halkaa ka qayb qaatay. haddaba marka munaasabadaas ayaa socota, warka ugu weyn ee Iiraan waa kaas. sheekada kale ee soo korortay waxaa ka mid ah Maraykanku mar kale waxay ku celiyeen inay baasaasayaan oo basaasiin Israa'iiliyiina ay ka adeeganayaan inay helaan xogaha ku saabsan Maraykanka iyo Iiraan waxa ay ku wada hadlayaan, waxyaabaha gaarka u ah oo Israa'iil laga qariyay. haddaba marka maxay sameynayaan? mas-uuliyiin Maraykan iyo mas-uuliyiin Iiraaniyiin ayay labadaba basaasayaan nimankan ee Israa'iiliyiinta. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray, telefishinka CNN ee dalka Maraykanka ayaa sheegay, ayaa la leeyahay Washington inay markaasi la socoto Israa'iiliyiinta, iyadoo mas-uuliyiin Maraykana iyo kuwa Iiraaniyiina ay markaa jaajuusayaan oo ay basaasayaan. shabakada CNN oo soo xiganaysay mas-uuliyiin Maraykana ayaa waxay sheegtay in maamulka Maraykanka uu markaa si dhow ula socdo shabakadaha basaasiinta Israa'iil ee shaqada ka dhigtay howlaha sirdoon iyo inay jaajuusaan mas-uuliyiinta Iiraan iyo kuwa Maraykanka. weliba bilihii ugu dambeeyay ayay shaqada si xowli ah u waday Israa'iil. waa tahay marka waxaa leeyahay nimankaanu waxay shaqo ka dhigteen bilihii ugu dambeeyay maadaama culays ay dareemeen in xogaha qaar laga qarsanayay heshiisyadii Iiraan iyo Maraykanka ay gaarayeen in markaa iyaguna ay hawsha basaasnimada ah ay basaasaan. hawshaasu markaa halkaasi mareen. haddaba wararka kale ee cusub waxaa ka mid ah xafiiskii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa saakay war soo saaray ku saabsan inaanay Israa'iil wax qorshe ah hadda aanay ugu jirin inay disho madax sare oo ka tirsan Iiraan. 24 saac ee lasoo dhaafay warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa Maraykanka oo soo xiganaya weliba mas-uuliyiin sare oo Maraykana ayaa waxay sheegayeen in Israa'iil ay wado qorshe ay doonaysay inay ku khaarijiso gudoomiyaha wadahadallada ahna gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Qalibaaf iyo wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekadan waxaa leeyahay Israa'iil waxa ay si kulul u beenisay war soo baxay oo sheegayay inay qorsheynayso dilka Araghchi iyo Qalibaaf. haddaba warbixintan waxaa leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa galinkii dambe ee shalay oo Jimcaha soo saaray warbixin wuxuu sheegay warbixin la faafiyay galinkii dambe ee shalay in markaa wargeyska New York Times uu qoray qorshe ah in la dilayo wasiirka arrimaha dibadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan oo markaa Israa'iil ay qorsheenaysay hawsha.
haddaba warkaasi waxaa faafiyey wargeyska weyn ee maraykanka ee layidhaahdo New York Times. xafiiska Netanyahu ayaa wuxuu soo saaray saacado ka hor in markaasi arrintani ay tahay mid aan waxba ka jirin, wuxuuna si kulol u beeniyey warka ay sii daysay saacadihii lasoo dhaafay jirada la yiraahdo New York Times, oo markaa waxay sheegeen Israa'iiliyiintu inaanay hadda qorshaha ugu jirin inay weerar gaadmaha ku dilaan madaxda Iiraan, gaar ahaan Qaalibaaf iyo Araqji. marka hawshaas iyaduna halkaas ayay maraysaa. waxay ka mid tahay wararka ugu waaweyn ee soo kordhay. Cumaan ayaa waxaa la leeyahay Ingiriiska iyo Faransiisku waxay culays ku saarayaan sidii iyadoo ay markaa uga soo go'i lahayd Iiraan, oo markaa marinbiyoodka Hormuz qaybta Cumaan in markaa maraakiibtu ay maraan. arrinkan wuxuu ka hor imanayaa heshiiska Maraykanka iyo Iiraan ay gaareen qodobkiisa 5. Iiraanna weli waxay ku adkaysanaysaa ciidaana iyada ahayn inaan laga amar qaadan karin marka la maraa marinbiyoodka Hormuz. dhankaas Cumaan mar haddaar ama dhankan soo mar, Iiraan waa inay ogtahay. sheekadu marka halkaas markay joogto ayaa waxaa soo hadlay madaxweynaha waddanka Faransiiska Macron. markabkii weynaa ee diyaaradaha xambaarayay ee uu iska lahaa ee Faransiiska oo la yiraahdo Charles de Gaulle. Charles de Gaulle kaas waa markab weyn oo diyaaradaha xambaara. waxaa loo geeyay Hormuz inuu furo miinada iyo marka laga qaadaa waardiyo. laakiin markuu meesha tagay isaga iyo markab kale oo Ingiriisku leeyihiin, Iiraan waxay tiraahiyeen miinada markaa maraakiib u soo wadanaysiin ma adinkaa geliyay meesha. markabkii soo dhawaada oo ereyadan isku soo galaa nagtaa ka saarinaydhe. marka Faransiiska markabkiisii hadda wuxuu ku dhawaaqay madaxweynahoodii inuu ceshaday markabkiisa kadib markii shaqadii halkaa loo keenay ay fashilantay. Iiraan de maxaa laga cunaa? Iiraan xoogaa miinadii aad dhulka dhigtay uga bixinaa may dhihi karaan may. markii dambe muxuu leeyahay marmarsiyo u samaynayaa markabkeygii wuu laabtuu dhah. sababtan waxaa waaye 17 bishii Juun ee soo dhammaatay markii heshiiska ay gaareen Maraykanka iyo Iiraan oo la isfahmay, ayaanu markaa isfahamka ayaa wuxuu keenay markabkeena inaan celino maadaama xaaladdu ay iska degtay uu leeyahay. oo markii hore markaa asagu dagaalka muu ku jiray, ma Maraykanku dagaalka uu la safnaa. ujeedadii meesha loo keenay miinooyinkii meesha ku jiray ma laga saaray. marka qolo walba markii Iiraan ay u soo dhawaato indhaha u shidato dibay u guranaysaa. haddaba marka aradito soo wararkii ugu dambeeyay Al Arabiya ayaa waxay qortay warbixin ay leedahay markabka la yiraahdo Charles de Gaulle wuu isaga tegay gobolka Bariga Dhexe. Macron ayaana sheegay arrintaas. haddaba madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa xalay sheegay oo Jimcadeed in markabka diyaaradaha xambaara Charles de Gaulle uu isaga tegay mandiqada Bariga Dhexe, waxaana uu dib ugu laabtay dalka Faransiiska. waxaana la sheegay in halkaas sababihii loo geeyay ay ahaayeen dagaalkii u dhaxeeyay Iiraan iyo Maraykanka. laakiin markii heshiiska laga gaaray, Faransiiska uu markabkiisii dib u cashaday. marka waxyaabaha la yaab kale marka waxaa ka mid ah dagaalka, sababaha dagaalka iyo waxa ka dhima dagaal muu ku jira may. waxay marka hore waxay ahayd miinooyinka saarina. Ingiriiskana markab uu dareesna wuxuu yiri miinooyinka saarina. Iiraan markay tiri marka miina aan meel geliyay cidii u dhawaataan iska jiro. marka baa leedahay hadii ereyada ay soo galaan ha iska jiraan markii leeyahay. nimankii marka waa ka joogsadeen. baashu waxay arkeen meel aan lagu degdegi karin inay meeshu tahay malakamoodkiya meesha. ma Hormuz waa malakamoodkiya ay yiraahdeen. marka hawshaas iyaduna wararka cusub ay ka mid tahay. dhanka kale afayeenka isbaaysiga nabad ku soo celinta Iiraan ee Sacuudiga hogaaminayo ciidamada ayaa u jawaabay Xuutiga shalay markii ay hadleen. waxay sheegeen Xuutiga inay wadaan wax la yiraahdo boor isku qaris
dhibaatada ay ka geysanayaan iyo dhibka ay ka wadaan Yemen iyo reer Yemen dhibkay u keeneen ayay Sacuudiga dusha ka saaranayaan. waa kaas waxaas ka hadlay waa ninka afayeenka ciidamada isbahaysiga Sacuudiga hogaaminayo ee nabad ku soo celinta Yemen la yiraahdo. marka wuxuu u jawaabayay nimankii Xuutiyiinta oo shalay u hanjabay Sacuudiga oo yiri mar dambe hawadeena haddaad soo gashaan oo diyaarado annaga noo socda aad qasqashaadaan iska ilaali. marka asaguna wuxuu leeyahay nimankaasu niman Yemen la degay waaye dhibaateeyay waaye mar walba waxay abuurayaan xiisad iyo dhibaato. marka muuse ka hadlin arinta ku saabsan waxa ay sheeganayaan Xuutiga oo ah in nimankanu ay hawada Yemen soo galeen diyaaradooda oo diyaarad Iiraan ka timid ay qasbeen inay diyaaradda hawada ka laabato. waxaas dhan muuse ka hadlin jawaabta uu bixiyay waxay ahayd Xuutigu waa dad xun waa dad la degay maartay Yemen intaasoo soo ku celcelinayaan. qodobka isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa. sheekada saake ugu qosolka badan oo aan la yaabay oo newska saaran oo adduunka oo dhan ay ka hadlayaan waa sawirka halkan noo saaran. waa kooxdii kubadda cagta Ingiriiska ee koobka adduunka ka qaybgalaysa. Ingiriiska waxay yiraahdeen ciyaartooyda waxaa laga dharjinayaa intaysan la ciyaarin isniinta aroortii hore ee soo socota aroortii hore kooxda Mexico aysan wadanka Mexico kula ciyaarin kaniiniga Viagra la yiraahdo. Viagra marka muxuu yahay? waa kaniini raganimada awood siiya rag marka ay dagaalka galayaan, macnaha si ay dumarka markay la dirirayaan oo hubka dhigis ugu sameeyaan. marka kaniinigan Viagra ayaa ciyaartooydii la siinaya oo ciyaartooydu ma barooniya ciyaarayaan mise dagaalka ay galayaan. marka adduunkii oo dhan ay yaabay sababtu marka maxay tahay kaniiniga loo siinayo. kaniiniguse ma la ogol yahay? waa tii kubadda cagta waxyaabo badan oo mamnuuca jira, qofka waxyaabo dhiiggiisa awood siinaya oo laba mamnuuca jira. marka warbaahinta waxaa leedahay Viagra kuma jiro waxyaabaha dadka nashaadka ciyaartooyda loo diiday kuma jiro oo ma lagu soo daray FIFA. laakiin dhab ahaantii dadku nashaad u siinaya le. marka laakiin dagaalkan kubadda ah iyo dagaalkii kale ee loogu talagalay kaniiniga sidee la isu waafajinaya? adduunkii oo dhan marka ka sheekeynaya. haddaba marka warbixin la yaab leh oo saakay telefishinka Al Arabiya uu ka soo arooriyay warbaahinta aadka uga hadlaysay ayaan idinla wadaagayna. ciyaartooyda kooxda Ingiriiska waxaa la sheegay inay isticmaali doonaan kaniiniga la yiraahdo Viagra si ay uga caawiyaan ama uu uga caawiyo kaniinigaasi inay la qabsadaan dhererka inta lagu jiro ciyaarta wareegga 16 koobka adduunka ee England ay la ciyaarayaan Mexico si ciyaartooyda uu markaa awood u siiyo. macalinka kooxda kubadda cagta Ingiriiska ninka la yiraahdo Thomas Tuchel ee u dhashay wadanka Jarmalka ayaa sheegay in England ay ku adkaan doonto inay la qabsato xaaladaha cimilada kadib markii ay ka soo safreen xerada tababarka ee la yiraahdo Kansas City oo Mareykanka ku taala, iyagoo markaa gudaha dalka Mexico kula ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee wadanka Mexico, kaasoo la sheegay in ay markaa tahay arrin aad u adag. dhirirka meel badda kor uga kacsan 240 mitir, taasoo la sheegay ciyaartooydu inay neefsashada iyo oksijiinka ay dhibaatooyin kala kulmi karaan. sida laga soo xigtay wargeyska Ingiriiska ee la yiraahdo The Sun, kooxda qaranka Ingiriiska ayaa laga yaabaa inay u adeegsadaan kulankaasi oo ay la ciyaarayaan kooxda Mexico in ay markaa isticmaalaan kaniin inay isticmaalaan. England waxay gaartay wareegga 16. haddaba ciyaaraha koobka adduunka ayaa waxaa la sheegay tababaraha kooxda England
in uu markaasi isagu uu soo jeediyey in ciyaartooyda sidii ay iskaga caabin lahaayeen Mexico oo markaa cimilada ay markaasi wax badan ay uga tari lahaa. Viagra kaniiniga la yiraahdo asal ahaan waxaa loo sameeyey in lagu daaweeyo dhiig karka ka hor inta aan loo isticmaalin in markaa lagu xoojiyo awoodda taranka ragga. Waxay ka shaqaysaa ballaarinta xididada dhiigga ee sanbabada kadib markii ay joojisay, taasoo markaa keenta inay ciriiri noqdaan. Tani waxay gacan ka geysan kartaa in ciyaartooyda hoos loo dhigo cadaadiska dhiigooda sanbabada, waxayna yareyn kartaa daalka iyo wareerka kaga iman kara heerka oksijiinka hooseeya meelaha sare ee ay markaa kooxda kubadda cagta ku ciyaarayso. marka sheekadan oo marka waa sheeko aad adduunka ula yaaban yahay. marka waxaa leeyahay kaniinkan Viagra sidiisaba markii hore waxaa loogu talagalay dhiig karka, dadka dhiig karka qaba. kadibaa marka waxaa loo wareejiyey dhanka awoodsiinta ragga ee dhanka taranka. hadda marka waxaa la yaab leh Ingiriiskii awoodsiinta ragga dhinaca taranka iyo la isku ogaa iyo geemka oo xaafadda, hadda waxaa leeyahay ciyaartooydiisu siinaaba. macnaha meesha lagu dheeli rabo ayaa meel dhulka ka kacsan badda ah oo markaa oksijiinta iyo wixii yartaa. laakiin kooxdan Mexicaanka waa wadankooda, iyagu way la haystaan oo way la qabsadeen oo markaa ma daalayaan. laakiin waxaa laga yaabaa waxaa lagu leeyahay kaniinkan Viagra haddaan kooxda Ingiriiska la siinin, uusan awood siinin jirkooda, uusan sanbabadooda iyo dhiig iyo wixii dhan uusan furin, in markaa ciyaartooydii ay dhaqaaqi waayaanba oo markiiba laga adkaado. marka si aan kooxda looga adkaan waxaa la siin doonaa kaniinka la yiraahdo Viagra.